الحمد لله رب العالمين صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد عاوي وهبين ثلاثة بيش سفر رايتاي صدح يا لباتن كون أفر بقول أفرتن يا أفرتي هجرية وافقصنا بيش سبتمبر صدح يا لباتن كذي لبعض كون لبي لباتن كي waxaynu insha Allah ta'ala isku baraarujin doonaa kalimadii la sheegay iyo muxaadaradii la cilaanshay oo ahayd maaxiyatu dunuubta dadku ay galaan waxyaalaha tirtira oo ka dhaqo ka mayra aadamaha sida nabigeenu sheegay sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waa dambi badan oo khaladka ayaa ugu badan hadaynu bani aadam nahay jin iyo insiba waliba khaladku waa ugu badan yahay iyo gafka inay jinka iyo insigu khalad iyo gaf galaan صدح ديناع بوكاي مان كرايو كليه ددال ويسليه هي wax badso iyo xasadnimo oo cid waxastayo ku xastayo iyo isla weynan saddexdaa ayaa keeni karta tusaale ahaan ibliis oo kale markuu ilaahay yiri nabi aadan u sujuud waa diiday wixii ku xambaaray oo aakhiradiisa adduunkiisaba ku seegay ibliis waxay ahayd isla weynan uu isla weyn yahay bay ahayd tayib labadii wiil ee ilmo nabi aadan ahaa walaalaha ahaa waa tiimidu midkii kala dilay waxa uu ku dilayna waxay ahayd wax kala ma ahayn xasadnimo ay ahayd iyo wax quuri la'aan nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wassalaam ilaahi baa asaga iyo xaaskiisa xawaa ku yiri jannada dhex degnaada waa ka guurinin oo halka jooga oo ku barwaaqaysi geedawn iska ilaaliya dadaal bay la yimaadeen inay geedii cunaan waxay sababtay inay jannadii ka soo baxaan oo adduunyadan u soo baxaan aadamaha marka iyo jinkuba khaladaadka iyo gafka ay gelayaan qaybaha u baa asal u ah waxa kale culimada qaar ku tilmaamaan laba qodob bay ku soo khulaasayaan oo ah wixii loo diiday inay sameeyaan waa gaf wixii la yiri sameeya inay diidaanna waa gaf kale waa labada ka yimid labada shakhsiyo ay ka soo jeedaan aadamaha iyo jinkuba oo nabiyullaahi aadam khata ay gafka ka dhacay wuxuu ahaa geedi la yiraahdo cunin ayuu cuna ibliisna dibkiisu muxuu ahaa sujuud baa la yiri waa diiday guud ahaan waxaad ogaataa qof ilaahay caasiyo cisiyaan guul ku gaaraa ma jiro قاعدة قبصو أنت إلهي عاسدين إن هذا إلهي عاسدين ماذا عاسدين يقول يهرمر كوجارتي هرتها الرجيني إلهي لكن وحي نوفري خلت كأنه أجيها يا دنوبته إنه أجيها يا دعد إنه أجيها أبواب بدنا ودنوبته إنه قدقوا نوفرا وحي ابن القيم تلمامي رحمة الله عليه أفر وبي وإلهي دتك ودنوبتك قدقوا صدح كمية الدنيا يالان saddexda qofkii dambiga lagaga mayr waayana aakhira cadaabka looga mayraabi shayga waxa kamid ah saddexda afarta waxa kamid ah kow saddexda adduunyada taala toobad inaad ilaahay u toobad keentay toobad nasuuxaha daacadnimo dar ilaahay oo dambigii iyo khaladkii aad gashay dar Allah uga noqotay waxyaalaha ilaahay dunuubta dadka kaga hoobiyay kamid taha waa wabi lagu dhaqayo waan arki doonaa insha Allah ta'ala kelmadeena dhexdeeda ama muxaadaradeena dhexdeeda qaybta labaadi waxa weeye oo wabiga labaad oo ilaahay dambiga kaaga dhaqayo waxa weeye masaa'ibka dunidan kugu dhacaya xanuunka caafimaad darrada murugta tiraanyada dhibaatooyinka waxa jecesho ku dhaafaya hadaa dar ilaahay ugu sabartid ayadana caawaan ogaan doonaayo ilaahay dambigu ku dhaafayo waa la isku dhaqayo waa la isku daahiriya waxa saddexaad oo adduunyada ilaahay dadka ku daahiriyayo ku mayra inaad la timaadid أعمال عبادوين آد أطير بدن أو أنت كهر تكتدم أد قشي أو كأود بدته هذا نطقدهم ما يرته أيضا وحلو يقنا الحسنات الماحيات وحياله هو ونكسنا خيرات كه ترتر الذنوب أد قشي صدق لا قفك الدنيا ده أنفع ويدو كفايدة سوايا حليها آخر وحلي ما يدي الذنوب تسوى وتصاوت صدق لي وضبك كفايدة سوا هدان إلهي عفين جحيم أنت اللي جيو الجور ده ولا دي مسلم بهذا النقطة قال أسيها بالشيء بقى جحيم أنت اللي جيو اللجوء جوا اللجوء تعشعية ولا قصة شراويحي وقلاي ayaa soo nadiifa marka jannada loo soo celinaya wala keenay marka waxa dareemaysaa
abwaabta ilaahay uu inoogu naxariisanayo dunuubta inoogu dhaafayaay aad bay u tiro badan yihiin waxaan tilmaami doonaa insha allahu tacaala caawiye habeen dambaba konton iyo dhowr qodob oo mid kastoo aad samaysid ilaahay dambiga kaaga dhaafayo mid kastoo aad samaysid ilaahay dambigu kaaga dhaafaya kaligiis baa kugu filan haddaad ilaahay waxa weeyaan niyad wanaagsan iyo toobadkeen sax aad la timaadid koo waxaa ka mid ah nabigeennuna tilmaamay sala allahu calayhi wasalam maalin buu saxaabada asagoo la socdoo meel maraya ayuu nebigu wuxuu soo maray bishajaratin yaabisati lwaraq geed caleen leh laakiin caleentu ay qalalan tahay fadarabaha bicasaahu nebigu sala allahu calayhi wasalama geedkii ushiisuu ku garaacay riwaayaadka qaar waxay axaadiidta tilmaamayaan wuu ligligayoo geedkiibuu lulay geedku caleen buu leeyahay laakiin waa caleen qalalan waxaa dhacday marka fatanaahara alwaraqu caleentii baa soo daadatay markaasuu nebigu saxaabada la hadlay sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ku yidhi ina alxamda lilaah wasubxaana allah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar waa afar eray alxamdu lilaah subxaana allah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar afartaa eray buu nebigu latusaaqitu min dunuubi alcabdi kamaa tasaaqata waraqu hadihi ashajara afartaa eray waxay hoobiyaan oo daadiyaan oo dhulka la simaan dunuubta addoonku uu gelayo sida geedkaa markaan lulayba caleentiisa ay dhulka ugu daadatay bal erayaashaasay u kooban yihiin oo aan waqti kaaga baxaynin oo aan weyse iyo tahaaro loo shardin oo masaajid iyo suuq midna aan loo shardin meel alaala meeshaad maraysaad ku subxaanlaysanaysa dhulkaas ilaahay barakaysa subxaana allah alxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar dunuubtayna cuslaysay oo daacadii inugu dirtay oo xumaha inoo fuudaysay waxyaalaha garbaheenna ka ridaya iyo tuurteenoo dhulka ku hoobinaya afartaa eray baa ka mida ogow waa qodobka koobaad weeye wuxuu labaadoo nabigeennu tilmaamay sala allahu calayhi waalihi wasalama man qaala subxaana allahi wabixamdihi fii yowmin 100 mara hal maalin gudaheed 100 jeer qofkii subxaana allahi wabixamdihi yidhaahda subxaana allahi wabixamdihi waa 100 jeer gelinka hore dheh gelinka dambe dheh duhurkii dheh gabalgaabkii dheh barqinkii dheh lama kala sheegin maalin un gudihii qofkii yidhaahda 100 jeer subxaana allahi wabixamdihi tii hore waxay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar tan laakiin subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi 100 jeer qofkii yidhaahda maalinkii xutat khataayaahu wain kaanat midla zabadi lbaxri dunuubtiisa ayaa la tirtirayaayoo la hoobinayaa walow dunuubta qofkaa saaran dushiisa haba noqoto badda xumbadeeda iyo abuurteeda wax tira la-eg carrakawa intay tira la-eg tahay ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisa ay ku tusinaysaa suu khayrka inoola jecel yahay suu wadooyinkii khayrka aan ku gaari lahayn oo dunuubta la inooga dhaqi lahaa uu inoogu fududaynayo 100 jeer maxay kugu haysaa culaysa subxaana allahi wabixamdihi adoo masaajidka soo gelaya 5 daqiiqo ma dhammaa laga yaabo ka yar subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi subxaana 100 jeer dunuubtaadu hadday la eg tahay badda xumbadeeda iyo abuurta dul heehaabaysa kelmaddaa sababkeeda lagaaga dhaqaya hadday dar ilaahay kaa tahay shayga saddexaad oo ilaahay dunuubta ku mayra waxaa ka mid a nabigeenna maalin saxaabada wuxuu ku yidhi awalaa adullukum calaa maa yamxu llaahu bihi alkhataayaa wa yarfacu bihi darajaat ma idin tusiyaa wax ilaahay dunuubta uu ku hoobiyo oo ku tirtiro darajooyinka qofkana uu ku dallacsiiyo tan kuwii hore waaba ka duwan tahayba kuwii hore waxay ahayn dembi dhaaf keli ah laakiin tani waxa weeye dembigiina waa lagaa hoobinayaa ilaahina waa ku dallacsiinayaa darajooyin saruu ku geynayaa markaasay saxaabadu aad bay labada qodobba u jeclaayeen waxay yidhahdeen balaaha yaa rasuulallah ilaahay rasuulkiisii hawshaa waa jecel lahaa markaasuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalama isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih wa kahratu alkhutaa ila almasaajid waintidaaru asalaati bacda asalaa saddex waxyaalood buu halkaa nebigu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam weysada oo waqtiga naftu ay weysada dhibsanayso si wanaagsan loo kaamil yeelo loo dhammaystiro masaajidda ilaahay tilaabooyinka iyo noqnoqodka in lagu badiyo ka sii bax ku soo noqo niyadda ku hay soo aad salaadaha ku tuko ku camir khayr qur-aan ku akhriso waintidaaru salaati bacda salaa iyo salaad inaad ku sugtid maqribkeeda haddaad tukatay masaajidka ilahay waad dhex fadhidaa cishahaad sugaysaa waad u soo lugaysay
waad soo weysaysatay dadka qaar baa laga yaabaa ayagoo xanuunsan oo dhaawac dareemaya ama qabow daran dareemaya ama sanboor uu ku kacsan yahay hadduu sandaarsado inuu inta soo weysaysto oo masaajidka ilaahay soo aado waxaa dhici karta saddexdiiba caawa inay isugu kaa darmadeen naftaadoo weysada dhibsanaysaad soo weysaysatay masaajidka ilaahay baad usoo lugayso lugta kusoo badisay salaadna waa salaad baad ku sugaysaa cishiya maqribka baad dhex fadhida waxyaalaha ilaahay dunuubta ku hobiya ka mid tahay marka ogow ha ka fogaan masaajidda ilaahay ku xirnow waxa weeyaan weysada badi nabigeena wuxuu tilmaamay weysada waxaan ilaaliya qof mu'mina waliba waxa cajiib ah oo nabigu tilmaamay markaad san daarsatid wixii sankaaga macaasiyo ka galay oo aad ku samaysay ilaa waa dhici karta sanka inaad ka dambowday soo dambaabi kartaa waxaan xalaal ku ahayn hadaa ursati ka war sankii baad ka dambowday dambiga wixii sanka aad ka gasho dambiya sandaarsiga soo raacaya markaad wajiga meertid wixii indhahan aad ku aragtay oo xaraam ah bihi weysada raacaya luqluqashada wixii afka ka aad kaga hadashay bihi weysada raacayaan madaxa waxaad ku haysay oo xasad iyo cuqdad iyo markaad madaxii masaxdid bihi bay raacayaan masixi lugihi markaad meertid weysadii aad lugaha ku meereysay ayay raacayaan dunuubta aad lugaha ugu lugaysay xagee yaan xariisaas laga helayo ilaahay ahayn dayib waxaa la mid ah oo nabigeenu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam isla qodobkaasaan ku jiraa saddexaad nin baa nabiga u yimid alayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu nabi allow xad baan galay xadkayga oofi markaas maxaa dhacay gabar islaameed oo meel joogtaan waxa weeyaan xoogaa la faraka ciyaarayo wax kastoo ninku reerkiisa ku sameeyay aan ku sameeyay laakiin umaana galmoonbi markaas uu nabigu yiri salaadii mana la tukatay si waadin la tukada markaas waxa soo degtay aqimi salata tarafay an-nahari wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at meeshiiba ninkii marka wuxuu ka fahmay waana siday tahay wixii khalad ee ka dhacay oo galabka maalinka ka dhacay haduuna toobad keenay salaadiina tukaday in laga dhaafay su'aal buu nabiga ku celiyo wuxuu yiri aliya hada arrinkan ma arrin aniga i quseeyo anu khaas u yahay mise wala ila wadaaga ummadoo dhan waa ila wadaagtaa markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam li jami'i ummati kullihim ummatu maxamed oo dhan baa kula leeyahay awshaas marka ninkan uu khalad buu galay gabar islaameed oo ajnabi ka ah ayuu la faraka ciyaaray la baashaalay muusan zinaysan laakiin waxa ka dhaafay waxa kamid ah inuu ilaahay u toobad keenayo salaadii tukado salaadu dambiga ay dhaafaysaa marka macnaheedu ma aha in la fududaysto macaasido la yiraahdo war habeen dhaweyd baan xadiis maqlay intaan iska soo faraka ciyaaran masaajidka ku soo ordahaya hadda ma ina shaygii taacada ahaayo ilaahi subhanahu wa ta'ala kugu talagalay inaad ku toobad keentay laftirkiisiiba ka dhigatay wadiiqa aan macaasida ku gaartid may lama ogola taas laftirkeeda dambi kugu noqonaysa masalada afraad oo ilaahay dambiga ku dhaafo aan caawa qaadanayna waxa weeye salaadaha shanta marka aan ka baxno mid walba ayada kamid ah baa nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam man sabbaha allaha fi duburi kulli salatin 33 salaad kasta gadaasheeda صدن يصدح جر قفكي سبحان الله سبحان الله وصدن يصدح جر صدن يصدح جرنا الله أكبر يراهده صدن يصدح جرنا وحاوينا الحمد لله يراهده صدن يصدح نبي وحير فتلك 99 وسقاشا يسقال مركب بغلان يراهده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قفكي سيدا يراهده غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ذنوبتي سيو دون ولا دافيا ولو بدو حنبدد يا ابور كذا بهل اكاتي صدن يصدح جير يصدن يصدح جير يصدن يصدح جير يا مركب بقولاد لا اله الا الله وحده لا شريك له وضميستي انت شيغنا دنبيغا دن با لو هوبينيه بل الله يسوي نوغو فديديه فير inaad meeshii fadhidi laazim ah waa sida ku fiican adoo taagan baad akhrisan kartaa adkaarta adoo sii socdaad akhrisan kartaa laakiin inaad laazimtidoo naftaada ku tarbiyeysi isbar طيب waxa kale oo cajiib oo nabigu uu sheegay sallallahu alayhi wasallam qodobka shanaad qofka markuu habeenkii raba inuu seexdo sariirtiisa iyo gogashiisa yimaado yiraahdo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar qofkii inta yiraahdo habeenkii markuu gogashiisa yimaado sida ku seexda غفر الله ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر إلهي ذنوبتي سوء ضافيا يجفف كيسة ولو ذنوب تقف كاسو همين كاو ماشي اللي بذهب النقطة بضح من بعد يا أبورتي هذا وحلي أكتر بني أنت كقفته واتسي حتى كورن هدي أضل سيدا أو آخر استي دم بيجينا الغور ضافي جيردو يكوت ماد وان دم ببلاهين با
jannada hore ka galaysaa hadda insha Allah ta'ala xadiidkaas labada xadiid oo aan soo sheegnay salaada gadaasheeda qofkii adkaarta akhrisanayay iyo qofkii sariirtiisa markuu yimaado adkaarta akhrisay labadaba dambiga in loo dhaafayo wuxuu nabigu tilmaamay ninka shaytaan la yiraahdo labada meeloodba inuu dadka isbaaro u dhigto labada qodobba inuu isku dayayo inuu ku seejiyo markaas nabigu xadiid wuxuu ku tilmaamay xadiidka Abdullah ibn Amr ibn Aas inuu nabigu yiri khaslataani aw khallataan la yuhafidu alayhima 'abdun muslimun illa dakhala al-janna laba arrimood qof mu'mini ma ilaaliyo ma dhowro kama soo baxo kuma dadaalo illa jannada ilaahi buu galaya nabi maxamed baa sidaa kula sallallahu alayhi wasallam nabigeenuna wuxuu sheego waa wahyi markaasuu nabigu wuxuu ku sii daray labada arrin hadana huma yasirun waman ya'malu bihima qalil labada shay waa laba aad u fudfudud inta ku dhaqantana aad bay u yarta walu fiirso dadku say u badan yihiin kuma dhaqmaan in yarba ku dhaqanta hadana waa wax aad u fudud dadku ay ka soo wada bixi karaan markaasuu nabigu tilmaamay labada arrin oo fudfudud waxay yihiin wuxuu yiri salaad kasta gadaasheeda 10 jeer baad waxaad oranaysaa subhanallah 10 jeer waxaad oranaysaa alxamdulillah 10 jeerna waxaad oranaysaa allahu akbar haday tamxan soo marra 3 soo ma ahayn tiiba tan waa ka duwan tahay waa 10 jeer subhanallah 10 jeer alxamdulillah 10 jeer allahu akbar xagga tirsiga marka la yiraahdo shanta salaadood bal isku daro salaad kasta marka 10 jeer subhanallah 10 jeer alxamdulillah 10 jeer atiraahdid allahu akbar maghribkan hadda tukanay marka saddexda midkiiba 10 jeer tiraahdid maxay isku noqonayaan 30 soo maaha shantii salaadood marka la fiiriyo nabigu xisaabiyo wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam taas ayada ahi waxay noqonaysaa bi 50 wa 100 bil lisan xagga carabka marka la fiiriyo shantii salaadood waa 150 sababtoo ah maghribkii markay 30 ahayd cishahana 30 ay tahay 30 iyo 30 marka la isku daro maxay noqon waa 60 duhurkii iyo casarkiina waa 60 laba 60 isku dar salaadii subaxna ku darato 30 ah xagga tirsiga markii la yiraahdo 150 soo ma 150 jeer baad maalinkii waxa tiri shanta salaadoodba subhanallah alxamdulillah wallahu akbar midkiiba 10 jeer maxaad ka faa'iideysaa xagga ogaanay tirsigaas wuxuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam xagga miisaanka marka la yiraahdo wa 1500 fil miisaan kun iyo 500 oo ajarna waa lagu qorayaa kun iyo 500 oo ajar ayaa maalinkaas lagu qorayaa shanta salaadood maalin kasta markuu dhamaado 1500 ajar 1500 ajar wax la heli karo ma soo ma waxa laga yaabaa inaad tiraahdo 33 baa hadaayta soo sheegtay hadana 10 ilaahi waxyaalo inoo fudeeyo waxa kamid ah hadaa degdegsan tahayna gaabso soo salaadaha lama gaabiyo mararka qaar ko safar iyo marka tahay hadii aad degdeg qabtid 10 jeer ka dhigo subhanallah 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 10 jeer subhanallah 10 jeer alxamdulillah 10 jeer allahu akbar markaad xoogaa degan tahayna wada dhameystiro 33 daba dhameystir isdiidi maayaan marka ka faa'iideyso taas waa qodob waa 10 kaas oo aad u yar inta ku dhaqantaa way yartaha waxa weeyaan waana jannada lagu waa wax aad wanaagsan wuxuu kaloo nabigu tilmaamay qofkiin markuu yimaado meesha uu seexan lahaa hadii uu yiraahdo 34 jeer allahu akbar 33 jeer alxamdulillah uu yiraahdo 33 jeer uu subhanallah yiraahdo allahu akbar tuu baa 34 ah inta haduu sidaa yiraahdo nabigu xagga carabka markii la tiriyo intaasi waa 100 xagga carabka hadii la tiriyo xagga miisaanka hadii la tiriyana waa 1000 fil miisaan waa kun xagga miisaanka xasanaadka habeen walba kun xasanaad baa lagu qoraya saxaabiga xadiidka warinaya wuxuu yiri nabi maxamed markuu saa wax noogu sheegay waxaan arkay ducadaas iyo adkaartaas uu noo tirinayo gacmihiisu guntay saas ku ay saas u tirinaysaa markaas saxaabadu waxay yiraahdeen nabi allow kayfa huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil waxaan waaba wax fudude seebay dadkii badankoodii ku dhacday inay ka faa'iideysan waayaan oo dadka ku dhaqmaya ay noqdaan dad fara ku tirisa markaasuu nabigu cilada tilmaamay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ya'ti ahadakum ya'ni shaytaan mid idinka kamid ah waxa uu iimaanaya shaytaan في منامه هردديسي وإسو دياريه إنه سيحضور ربي أذكارتها إنه كو أخريستو برتاسو كو إيمانية كدين ما يبا سريرتي أجيفتو أذكارت كو أخرين ربتو إسو تاقية فينومه قبل أن يقوله إنتو سن أذكارتي آخرين بو ربان ربا يا سيحينية الميرو اللي سيحيين مالك جرت وكو ربان ربي وكو سيحين وكو إلوسين هدو أضو إسلاها أخساد واحد أركيسا صبح هذا وكو بريب أذكار الآن ومد لبعض تي صلاة قداش هذا آخر سنة لهاي هذا يصدق يصدق تهاي هذا يتبان كون لقول لهاي با
ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها صلاة أدو كتير صلاة كوي معنا يا وح كو قرشي سمر روح نعاول الشيء لما قد كره طبعا شهر سبحان الله ده أما صدق يصدق شهر ده صلاة ده هذا بوح كوفر يا برامج هذا مركو ربع حسوسنا دن هذا كبر قمين بقى هداية تقف كاس وهاد بلنتين بلنتنا وين هذا الرسول الله كمسلم وحبس صلاة واجب كهدوات جودتي أذكرتها أنا وأسكت سنة مركز صلاة جودتي هريك بود بسم كي يصلي قبصة بوابة كبيه نداء أبشر بعض الشيء الله ونحرسته هرو كورده هي قف كي مرك وبكار أرجع حاجة بكسي يورده هي وحال جاي ببنان كاسو إسك استاجيه قف كي أوس عدينا ما هذا يميل كرو إسبارة أصيل تمساج كينا كحي هالكاسو كهينا يا مرك لبدا فإذا مرك أتكهل لهيد همين كي يورده مركز سيحان يصير دعاء آخرسان لهيد هي صلاة قداش دعاء آخرسان لهيد دم بيقال لقى دافي لها ninkaas halka ku fariisanayo isku dayay inaadan guusha gaarin shayga lixaad oo ilaahay dambiga ku dhaafo in caawa qaadanayno wuxuu nabigeenu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam muadinku markuu adimayo qofkii adinka muadinka raaca oo dhageysta oo la socda markuu adinka dhameeyana yiraahdo oo maqlay hadalkiisa la ilaaha illa allah wuxuu leeyahay ashhadu an la ilaaha illa allah wahdahu la sharika lah وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا صدح ذا يقفك كل واقع مركو مؤذن كرمين أيوه ولا إله إلا الله يراهده أما لحظة أمرنا يو أشهد أن لا إله إلا الله إليه علماء البدر رائبة ويكقب إليه هنا غفر له ذنبه سأي على ضافيه مؤذن كي أدمي وأذن كي سأجيبتي أو أنت أتكو هذا الشيء إلهي دنبك كور ضافيه حافظ ضيسان مركا أذن كايري توحيد كلا يسوي يري صلاة سنة كفاية دي ستيد وهذا ذكرت أيضا حفظي شيء تضبط وإلهي دنبك كور ضافا وحوي وصلاة شنطة إلى الانتوض نبينا صحابة سؤال ويديو وحو يري بل كور رمى مد إذن كإذن كم ده قريجي سأل بابكي سهدي ومري لها وبي بيئة أو مالك الشن شير كقبيسته مثله قفك وح وسخ يشير مساجر كي سكوهار الهيد الكثير هذا الماء وحو النبي وشجع فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا هذا بس صلاة شن تاسيد أسوي شن شير بمالك الدم بيجا دقيا شن شير دم بكسوات قشيد الله وكاغا دقيا صبح بالغا دقي وظهر كي بالغا دقي وعصر كي بالغا دقي وعش مغرب كي بالغا دقي وعشي بالغا دقي واذكارتي بعد دم دافه وويسدي بعد دم دافه الا الهي نحرس بدنا محو خيرنا لا جعليه طيب waxa qodobka sideedaad noqonaya oo ilaahay dambiga uu ku dhaafo imaamka ina tujinaya markuu aamin yiraahdo inaad isku daydid inaadan ka hormarin laakiin aamintiisa aad la qabsatid oo la tiraahdid aamin markuu yiraahdo la dheh والنبي نوحو تلمامي إذا أمن الإمام فأمنوا إمامك إذن تجينا آمن مركو يراه الله دحايا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه آمين تيسه يا آمين تملائكة غف كيس وافقه إلهي ذنبه سهر وأضافيه هسهلا المركة إن إمامك وافقدت ومركو ولا الضالين يراه آمين تيسه هذا صلاة هذا تن ملائكتنا أي نوع إذن الله أرنيس ملائكته صدق هذه هذا وافقان إلهي ذنبه كوضافيه قولك السجالات وحوي تاسو آمين تيهاي كالسجالات وحوي سمع الله لمن حمد مركو يراهدو إن هذا دقونا تراهد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قفكي سيدا يراهد ملائكتنا وي أرانيساه اللهم ربنا لك الحمد أدنا واتري إمامك وايري وايس وافقين أينا ذنبي قالوا وضافيه إن هذا اسكت تاجناتيد مركو اسكت لغدارناتيد ييناد إمامك سمع الله لمن حمد يري أن ترى سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أما اللهم ربنا ولك الحمد وحويان وحلا سلاف صدمة ها أمسناني هذا لو كارت آخر وهذا قضب كتبنا وحوي وإلهي الذنوب تقول دافع عوق هذا صلاة الليل كينا تكتد ودر إلهي أتكتد ولو هبيراته هل رجع الله كديقو صدح الله كديقو شن الله كديقو وحن راتب ودي الله كو عابد وقت جدتكو إفردان إنها تسميستي نبينا أنا هوشا دردارمي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ورغادا همينك إن لا تكدو صلاة الليل لا تكدو تدكي وناك سناي إذن كهر ريا دقن يا عادة واهي وهو قربة إلى ربكم ربكم بيدين دوين ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ذنبي أنا والغرافة
xumaatooyinkana way kaa reebaysaa ee salaatuleylka ugu nabiga sallallahu alayhi wa sallam marka salaatuleylka ka warqab طيب qodobka 11aad wuxuu nabigeenu tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam qofka habeenkii asagoo hurda soo toosa waad hurday adkaartii hurdada waa soo qaadana tani waa soo toositaan aad soo toosto waad is rogtay markaasaad waxaa tiri laa ilaaha illa allah wahdahu la shariika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah inta saatiri hurdadii baad ka soo toostay waad galan galcaynaysaa dhan baad isu rogtay ama waad istaagi rabtaa intaadan wax kala qabanba intaasaad ku dhawaaqdo markaasuu wuxuu yiri markuu intaa yiri qofkii allahumma ighfir li ilaahu dambigayga ii dhaaf ama wuu ducaysto wax kale oo muraad oo sano lahabu ilaahi weydiistay nabigu wuxuu yiri ustujiba lahu dacwadiisa waa la aqbalaya maxaan kale ula jeednaa marka ilaahu ii dambi dhaaf xilliga hadaa tiraahdid ilaahi dambiga waa ka hubinaya waa ka dhaqaya haddii aad weysaysato tukatidna salaadaadi waa la aqbalayaa siduu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam marka ducadaas inaad akhrisatid habeenkii marka aad soo toosaysid iyo marka aad isrogaysid isku day shayga labiyo tobnaad oo ilaahay dambiga ku dhaafa waxa weeye nabigeenu wuxuu tilmaamay man saama ramadaana iimaana wa ihtisaaban qufira lahu ma taqaddama min dhanbihi qofka bisha ramadaan sooma asagoo ujeedadiisu ay tahay laba qodob kow iimaan uu rumaysan yahay ilaahay inuu arrinkan ajar ka siinayana uu filanayo ilaahay dambigiisa waa ku dhaafaya waa soonka taasi marka bisha ramadaan qodobka 13aad wuxuu noqon waa isla bishii ramadaan man qaama ramadaana iimaana wa ihtisaaba bishii ramadaan baad salaatuleylkii u istaagto taraawiixdii wax ka tukatay ilaahay baa dambiga kugu dhaafaya ayadana qodobka 14aad isla ramadaankii ku dhex jira man yaqum laylatul qadri habeenka laylatul qadriga qofkii waafaqay istaaga asagana qufira lahu ma taqaddama min dhanbi haduu iimaan iyo ihtisaaban u istaagay way qodobka 15aad waxa weeye oo ilaahay dambiga uu ku dhaafo waa maalinka carafa soonkeeda nabigeena sheegay ahtasibu ala allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu sanadkii ka horeeyay iyo sanadka soo socda labadaba dambigooda carafa maalinka soonkeeda ilaahay ugu dhaafan rajeenayaa qodobka 16aad waxa weeye oo kale ilaahay dambiga uu ku dhaafo maalinka caashura soonkeeda bisha muharram ayadana nabigu waa sheegay sallallahu alayhi wasallam siyaamu yawmi caashura ahtasibu ala allah an yukaffira sanata allati qablahu sanadka kii ka horeeyay ilaahay inuu dambigeeda ku dhaafaan ilaahay ka rajeenayaa marka labada maalmood soonkoodana waa wax ilaahay uu dunuubta ku dhaafee ayadana aan ogaano طيب waxaa kale oo qodobka uu noqonayaa 17aad qofkii inta xajiya ilaahay dartii u xajiya man xajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu qofkii xajiya ilaahay dartiina u xajiya dar ilaahay dan kala ma leh dadka qaar baa waxay u xajiyaan xaaji hal ugu yiraahdo ma garanaya dadka ku oran jirtay wariya maana ilaahay laysaano xaajiyad oo hada xajka ma waxa dadka ku rigaysataa oo dadka wax weyn ugu baalxooftaysid lama rabo dar ilaahay wayna ka tahay inaad xoolahaaga magac ugu soo bixisid ninkii wiilkiisa ku yiri aabe looda hebel maalin walba waxay ugu qaribtay loodii xaajiga aabo sanadkan looda magac u soo bixi buu aabo maxaan kala u socdaa bi loodeena in la yiraahdo loodii xaajiga oo xajka ugu socdaa bi waxa soo kale marka ma aha xaj ma aha xajka laga hadlayaay man hajja lillahi ilaahi dartii buu u xajiyay waliba intuu xajka ku jirayna wuu is dhowray oo haween iyo shukaansigood iyo xiriirkood iyo wuu iska ilaaliyay hadal xumana waa iska dhowray wuxuu soo noqonayaa xagga dambi la'aanta asagoo la mid ah maalinkii hooyadii dhashay dabcan waa wixii xaq ilaahay xaq aadama wuxuu u baahan yahay istihlaal iyo cafi inaad tiraahdi طيب waxaa la mid ah waxyaalaha ilaahay dunuubta uu ku dhaafo nabigeennuna uu tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam saliga nabigeena sheegay sallallahu alayhi wa sallam qofkii saliga nabiga badiyay ilaahay dunuubta inuu ku dhaafo oo kurbada ku faydo oo muraadiyo badan lagu helo ayaduna waa qayb kamid ah waxyaalaha ilaahay uu dunuubta ku dhaafi ugu waxyaalaha suuratul hujuraat baa waxa jirta qolyo reemiye ahaayo nabigu quraanka uu ka sheekeeyo nabiga gurigiisa inta yimid oo qolalkii nabiga hareerihiisa ku wareegay oo waliba mid kamid intuu hadlay uu yiri soo bax nabi maxamed uu yeerahaya inna dhammi shaynun ومدحي زين قف كان أمانه وقروح بنانية كي أنا عاينة هبل قفك عاين مرة لما مغلي ترتين دقرتها كبديسة مركز النبي ذاك الله قفك أمانة وقيم ليه قفك عاينة نرش كدعيا والله الله بتلماتها يسكله هذا ملهد قل يا النوع عاسة
baa ilaahay markuu ka soo waramay wuxuu tilmaamay kuwa codkooda hoos u dhigaya rasuulka ilaahay agtiisa oo aan kor u qaadaynin ulaa'ika alladhiina imtixana Allahu quluubahum littaqwa lahum maghfiratun soo ma jeedid lahum maghfiratun in nabiga la qadariyo oo la ixtiraamo oo lagu saliyo oo la weyneeyo waa waxyaalaha ilaahay dunuubta uu ku dhaafo qodobka 19aad wuxuu noqonayaa oo ilaahay dambiga uu ku dhaafo inaad toobad keentid ninbaa wuxuu sameeyay aad u macaasida ugu dadaali jiray macaasidu arko iska sameyn jiray waagi dambeetu wuxuu isiri sidaan hadii ilaahay uu kugu dilo waa saa ku dhimatid waa lagu cadaabaya maxaa xal wiilashiisiibu inta isugu yaro shir jaraayad u qabtay wuxuu yiri hadaan dhinto markay naftu iga baxdo iguba markay lafahayga ludkaygu intay dhamaadaan dambas noqdaan ituuro badana igu tuura waliba maalin aad dabaylaha iyo duufaantu ay u kacsan yihiin ilaahay haduu gacanta igu dhiga buu yiri wuxuu i cadaabaya cadaab usan qofna cadaabin ma ilaahay baa cidna ka qarsoomi karta sidii bay sameeyeen waa la gubay oo waa la bitiyay oo dhulka lagu seeriyay dhulkii lagu seeriyay laftirkiisa ilaahay la hadlo wuxuu ku yiri dhulay ninka wixii jirkiisa haysi banaanka ka dhulkuna ilaahay ma caasiyo isla markiiba ninkii waa kana waa taagan yahay ilaahay baa hal su'aal weydiyo wuxuu ku yiri ma xamalaka ala ma sanacta inaad isgubtido dab isku shidid oo waliba aqaabka tiraada hal ay bitiyo maxaa kugu kaleefay kugu xambaaray wuxuu yiri ilaahay cabsi aan ka baqahayo ha marka tani waa cabsida ilaahay cabsi aan ka baqaya igu kaliftay markaasuu ilaahay wuxuu yiri waan ku dambi dhaafa dambigaaga waan dhaaf culimadu waxay leeyihiin ninka heerka waxa gaarsiiyo wuxuu ahaa cabsidii baa ka tanbadatayba marka ilaahay oo laga baqaayay ilaahay dambigu ku dhaafa qodobka 20aad waxa weeye majaalista markii la fariista meelaha ama khayad fariiso ama meel shira fariiso ama masaajid fariiso ama goob waxbarasho fariiso meel uu dadku isugu ama gurigaaga fariiso meelaha soo kale ta marka qofku uu fariisto intuu sakicin haduu yiraahdo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka inta haduu yiraahdo dambigiisa ilaahay dhaafaya wixii dambi ah oo meesha ka soo gaaray waa laga dhaafaya waa meeshaasi hadii khalad iyo gaf uu ka jiray kaftan mala yacni aan tarabaqash fadhi ku dirir qaadara meesha ka jirtay markaad istaagaysaa inta tiri ilaahay waa ku dhaafaya qodobka 22aad wuxuu noqon quraanka ilaahay marka la akhriyo ama salaadaha la tukado erayaashaas aan soo marro kale kuwa aan ka agfoon in lagu dhawaaqo oo Aisha waxay leedahay rasuulku sallallahu alayhi wa sallama ma jalasa majlisan qattu ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم بها ذلك بكلمات نبي سلاد متكن قرآن ما آخرين ميلا ما أصن فريسا إلا نبي صدح داس متك كمدا ووحو كسو جبين شري إرياشا مركاسا النبي ويديو وحن كوير النبي الله صدح دان وحيالود مت كمدا مركز سميني سمع أرهن كان وختين تا مركز يري النبي صلى الله عليه وسلم ها من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير قفكي انت قرآن أخريي أما صلاة كذي أما ميل فريستي وحاويا ماشي خير انقلق المي أذكار تانا أخريستي تيم برأي الشابد وحلو قلو فانا يقفك سو إنه خير ماشي كل يمده تيم برأي حساكو قلو سن وحسناتك آخره وحاويا كوجرتها وشاسي ومن قال شرا قفكي ماشي او فديه شر كسميينا اما حما كو هادلينا كن له كفاره ترترد بي نقونيسا دنبيغا لاغا ترتيرو خييهين سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك علماء قار با waxay u baabaystaan kutubtooda quraanka markaad akhrido isku laabaysid ha isku laabina waxaad inta sakicina سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وختمات القرآن كله ختم ختمات أنك وحين رغم صدق الله العظيم إن نراه صدق الله العظيم صح لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ولا تلا قرآنا نبي القرآن ما أخريه إلا وحكو ختم جري سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ماشي أصدق ميل خير قبتك هو هيد تيم برا ميلكو يالا إن الخير همين كماشا كلا تقطيع حدي خلط كاغا دعينا إلهي با دنبيغي كاغا ترتريا إرياشا أكو هاداش مركا هوشاسي وهول مهمات ديدا لإنا كفايديسانو قضبكا لبيا لباتناد وحاوي
waxyaalaha ilaahay dunuubta ku dhaafana ka mid ah dhibaatooyinka qofka mu'minka adduunyadan ku dhacay dad badan baa dhibaataysan qaar baa waxa laga yaabaa xubno jirkooda muhiim u ah inay waayeen oo labadii kaliyood ay ka dhamaadeen oo asbuuci intaas oo jeer la mayro qaar baa waxa laga yaabaa inay kansar la nool yihiin qaar baa waxa laga yaabaa inay dhiig kar la nool yihiin qaar baa waxa laga yaabaa xanuuno xun inay la nool yihiin qaar baa waxa laga yaabaa macaan halis badan inay qabaan qaar baa waxa laga yaabaa inay xubnahoodii qaaliga ah qayb badan oo kamid ah waayeen gacmihii lugihii indhihii qayb badan waa la imtixaamo qofka mu'minka imtixaanka ku dhaca daal haday tahay iyo murug haday tahay iyo dhibaato soo gaarta xataa nabigu wuxuu sheegay qodax haday ku muddo soo wax yar ma ah qodax yari haday ku muddo illa kaffara Allahu biha min khataaya ilaahi dunuubtu kaaga dhaafaya dambigu ilaahi kaaga dhaafaya hawl saalan hawshaasi ma ah waxa kamid ah waxyaalaha ilaahay dunuubta uu ku dhaafo shahaadada qofku intuu jihaad galo inuu ku shahiido oo nabigeena wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam yughfaru lishahidi kullu dhanbin illa dayn qofka shahiidka ah jihaadka ku dhintay dambi kasto uu galo waa loo dhaafayaa waxaan deynta ka ahayn walaash fiirsaa hawshaas deyntu marka wax sahlan ma hatta qofkii mujaahidka ahaa oo naftiisa ilaahay darti u huray deyntaas xaqa aadana loo dhaafi maayo sida nabigu uu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam طيب waxa kale oo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay oo qodobka 24 ah qodobka 24 oo nabigu tilmaamay sadaqadu inay dunuubta dhaafto oo ilaahay uu ku dhaafo mucaad ibn jabal baa wuxuu yiri nabigaan la socda maalin markaasaan waxaan weydiiyay nabi allow waxaad ii sheegtay wax jannada ilaahay igeliya naartana iga fogeeyay waxyaaluhu nabigu uu sheegay maalinka waxa kamid ah was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar sadaqada la baxay qofka dambigiisa ayay baqtiisaa oo damisaa oo dhaafaysaa sida dabkii shinaaba biyo hadii lagu shubo dabkii uu seexanayo oo baqtinayo marka sadaqada ogow dadka masaakiinta ha la caawiyo ha laga warqabo ha loo naxariisto ha loo fargado طيب qodobka 25aad wuxuu noqon in dadka ihsaan loo sameeyo ilaahay dunuubtu ku dhaafa wuxuu nabigeenu tilmaamay nin taajir ahaa oo ganacsada ahaa culimada qaar xadiidka waxa ku soo arooray xadiidka alfaadisa qaar kamid ninku inuu dambi ganacsadana uu ahaa dambiilana waa waliba dambi badan laakiin hal dhaqan buu lahaa oo ah bulshada la dhaqmayso wax ka gadanayso ihsaan u sameyn jiray dadka ayuu dayn siin jiray shaqaalaha u shaqeeyo la hadli jiray wuxuu oran jiray qofkii wax ku cuslaadaan oo aad aragtaan isaga dhaaf ha dhibinina ninkii wuu dhintay ilaahi baa wuxuu yiri marka wuxuu oran jiray iska dhaafa in ilaahay inoo dhaafa inagana laga yaabay faraha ka qaada inagana ilaahay inoo dhaafa laga yaabay ilaahi baa ninkii u dambi dhaafo dambiga ugu dhaafay hadaba ihsaanka khalqiga loo sameeyay dambiga ilaahay ku dhaafa waajib hadda markaan tukanay halkaana nin baa ka istaagay indhool xaqana mid kale indhool ka istaagay sumida arkay kani wuxuu leeyahay arrahimuna yarhamuhur rahman inta naxariisata ilaahay baa u naxariistay in naxariista kan kalena wuxuu leeyahay waa indhala xoolana ma haysto ciyaalo waa ila xariira markaan wax garan waayeen idinka idinku soo calmada shaqaysan karo waa baahanayaal Soomaa dadka noocaas oo kale taa oo baahida goonida aqaba inaad gooni ugu naxariisatid soo noqodkooda iyo masaajidka istaagooga iyo waxaas waxba waxa weeyaan dib ha u arki u naxariiso u fargo shan shilin hadaa haysatid ku caaw ilaahay baa ku naxariisanaya طيب waxa la mid ah waxyaalaha ilaahay dunuubta uu ku dhaafo qofku intuu khalad galo khaladkii xadkiisii in laga oofiyo oo nabigeena sheegay sallallahu alayhi wasallam qofkii khalad gala xadka ilaahina laga oofiyo markaas فهو كفارة له إنه دم داف وياهي وحدك إلهي اللي جاء في مثلا وزنيستي وحبوا حدا وقعنت على جشري قف بود لي مسلم ولو قصاصي دم داف في أطاع قصاصي لفت الكيدي حدود دي اللي جاء فينا جي أيها كفارة جود النقنيسة وحسهل المركب معه طيب وحكم إذا وحياله إلهي الدنوب توقعها فوق قدر كتدبي الله بعتناده تيه روح عن صوم مرة إحسان إن الله سميه آدمه ثاني وحوي إن إحسان الله سميه حتى حيواناتك ninbaa wuxuu ahaa mid meel maraya oo ooman aadan u haraadsan wuxuu yimid ceel biyo leh ceelkii uu dhexdiisa galay biyihii buu ka soo cabay banaanka markuu soo baxayba wuxuu arkay aad u haraadsan oo ceelka sabadiisaas qoyaanka yaala iyo xoogagaas meesha carabka la leefleefay markaasuu islaad loo xiir arkan oonkii hayay baa haya meeshii wax iga gaareen bay ka gaareen ceelkii buu dib ugu noqday
khufkiisiibuu biyihii u soo dhaanshay aygiibuu waraabiyey aygii markuu waraabiyey fa shakara allaahu lahu fagafara lah ilaahay baa uga mahadnaqay qofkaasu falkuu sameeyey weliba dembigiisana waa u dhaafa ninka ay qofkii dembi dhaaf ku mutaystay dee niyadiisaa kollay wanaagsanayde aadame qofkii caawiya soo kama sii cajiibsana ummatu maxamed oo muslim ah waxaa la mid ah gabadhii iyaduna zaaniyadda ahayd gabar zaaniyad ah oo jirkeeda ka ganacsatay ahayd markaasay iyaduna ceel timid ceelkii bay ka cabtay markaasay markay soo baxday aragtay ay sidaasoo kale u haraadsan gabadhaanu zaaniyad ha noqoto laakiin qalbigeeda waxa ka muuqda xadiidka markaad fiirisid raxmad bani aadanimo cajiib ceelkii bay gashay waa qof dumara khufkeedii ay qabtay kabaheedii bay siibtay biyihii bay ku soo dhaamisay dee biyihii hadday tiraahdo gacan baan ku qaadayaa hal gacan oo kale kuma bixi karta ceelkii maxaa xala marka khufkeedii iyadu ay ku lugaynaysay oo siigada iyo dhiiqada iyo qashinka ay la dhex maraysay ayay afka ku qabsatay waxaa laga yaabaa inuu qarmuun yahay waxaa laga yaabaa dhiiqa iyo qashin inuu leeyahay kulli waxay la ilowday raxmadda qalbigeeda ku jirta markaasay inta bannaanka keentay bay eygii waraabisay oo eygii noolaysay markaasaa ilaahay ugu dambi dhaafa nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa hore waa la weydiiyo waxaa la yidhi nebi allow ey baa inta nin waraabiyaa dembigiisa lagu dhaafay oo waxaa weeye xayawaanaadka waraabinta iyo dhaqaalaynta aan dhaqaalayna ma ajar baan ka helaynaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi fii kulli kabidin radbatin ajrun beer kastoo qoyan oo wax la taro ajar baa laga helaya xataa gaal bani aadam ah oo aad kala mabda' tihiin oo gaal ah haddii uu ku yimaado miskiina waad caawin nabigeenna sala allahu calayhi wasalam saxaabada inta la hadlay wuxuu ku yidhi gaalada waxa siinina markaasaa ilaahay soo dejiyey laysa calayka hudaahum walaakin allah yahdii man yashaa markaasuu nebigu saxaabada la hadlo wuxuu ku yidhi tasadaquu calaa ahli ladyaan war dadka diimaha kala haysta u farogado qofkii baahanaad aragtaan caawiya waxaaba laga yaabaa caawintaan aad caawisa inay sabab ugu noqoto inuu diintaada soo galaba ayib waxaa la mid ah qodobka 29aadna uu noqonayaa waxyaalaha ilaahay dunuubta uu ku dhaafo in bulshada wixii anfacahaya loo taro wixii dhib ku ana laga leexiyo dhibka laga zuuliyo wuxuu nebigu sheegay nin soconayay wadda muslimiintu ay maraan buu marayay wuxuu arkay geed waddada ku soo baxay oo laamihiisu ay waddada soo saaran yihiin oo qodxa leh oo muslimiinta dhiba ninkii wuxuu yidhi dib dambe qof muslima u dhibi maysi geedkii asaga ahaa laamihiisii iyo qodxihii dadka dhibayay ayuu ka jaray dib buuna uga dhigay allah subxaanahu wa tacaala ayaa dembigiisa ku dhaafay innaga islii baan degannahay nairobi sumid arag rafaadka inaga haysta dhiiqada bulaacadda qashinka mooska lagu soo tuurahayo waxaan haddeer soo marayay meeshaan gaarsiilooda horteeda wax allaala wixii qashin oo la haysta meeshaasaa dumarkii inta wax wada dhigteen iyo raggiiba waa halkaasaa lagu qadeeyaa markaasaa mooska iyo qubka iyo qashinka iyo halkaasaa la isaga tuura waad yaabe bulaacad bay noqotay meeshaas waxyaalihii dembiga lagu dhaafahayeyna hortooday yaallaan wixii dembiga lagu mudanayana waa la samaynaya arrinkaasu sax ma ah nadaafadda waa inaan ilaalino jidka muslimiinta wixii dhibaya inuu waxa weeyaan ka zuulino dembigaagaa ilaahay ku dhaafaya subxaana wa tacaala ayib qodobka 30aad wuxuu noqonayaa oo ilaahay dembiga uu ku dhaafo qofku markuu cunto cuno ama cabitaan uu cabo inuu yidhaahdo alxamdu lilaah alladii acamanii hada aطacaam warazaqaniihi min gayri xawli minii walaa quwa ilaahiga waxaa mahad iska leh cuntadan ayadaa i siiyey hadduusan ku siiyeen maadan hesheen hadduu inta ku siiyo kuu diidi lahaa jidiinku inuu kuu maro oo aad xanuunsanaan lahaydna maadan mariseen inaad cunaysid oo ay kuu dhadhamayso oo ay kuu macaan tahay oo ay naftu rabto oo aad u baahan tahay oo ay meel aad dareemayso baahi ku jirta ay sii daawudayso ilaahay fadligiisa wey ilaahigii marka taa i siiyey uguna arsaaqay anoon xeelad iyo xoog midna ku keenin ayaa mahadle ayaa tiri ogow hadde adcamanii weeyo asagaa ku quudiyey warasaqaniihi weeyaanu asagaa ku siiyey keliya waxaa tiri alxamdu lilah qofkii intaa yidhaahda qufira lahu maa taqadama min dembi wixii hormaroo dembigiisaa waa la dhaafaya yaa laga helo aan alla ahayn cuntadaan hoo oo cabitaankaan cun oo waxa weeyaan oxygenkan iyo hawadaan qaado oo sidaa wax u cun halbooliyaashii xididadan kuu fudaydiye dhadhan iyo macaan baan ku siiyey haddana dembi dhaafaan kugu darhayaa alxamdu lilaahi keliya dheh wax weyn weeye hawshaasi wax weyn waaye cuntada aad cuntay iyo cabitaankaad cabtay waxa ka khayr badan alxamdu lilaahi daad tiri sababtu waxa weeye alxamdu lilaahi waa shay cibaadaahoo thawaabkeeda iyo ajarkeedu waa baaqi noqonaya laakiin cuntada haddaad masquul geynaysa marka adduunyada wax yaalo dhan haddii lagu siiyo alxamdu lilah tiraahdo ka mahadnaqdid wixii adduunya lagu siiya waxa ka khayr badan alxamdu lilah waxaa la mid ah
oo qodobka 31 uu noqon qofkii labista baad soo labisato waa kana wala wada labisan yahay gurigaaga ka soo labisatay markuu maradiisii xirtayna yiraahdo alxamdulilaahi alladii kasaani hada athawba warazaqanihi min ghayri hawli minna wala quwwa ilaahiga maradan isiya mahad iskale oo igu arsaaqay quud iyo rizq iga dhigay anaan xeelad iyo xoog midna ku keenin ayadana qufira lahu ma taqaddama min dhanbi balino ilaahay ceebtaadii iyo cawradaadii dadka ka asturay oo dhar iyo labis ku siiyay haddana markii aad alxamdulilaahi tiri uu dambi dhaaf kugu daray arrinkaasi arrin sahlan ma aha markaynu labisanayno ama dhar cusub aynu gashanayno inaynu adkaarta inta xifdina akhrisano ogaanay yeena wax weeyaan sahlan hawshaas ayada waxa la mid oo qodobka 32 uu noqonayaa in ilaahay mar walba aad dambi dhaaf weydiisatay si kastoo khaladkaagu u badan yahay dhacdhacaagu u badan yahay waxa weeyaan simbirraxashadaad iyo kacaakufkaagu u badan yahay waliga ha ka quusanin inaad ilaahay naxariistiisa weydiisatid iyo dambi dhaafkiisa wuxuu nabigeenu ka warramay adoomada ilaahay kamid rabbi buuna xadiidka ka warinaya ilaahay baa wuxuu leeyahay adnaba abdun dhanban adoon baa dambi galay uu dambaabay markaasuu wuxuu leeyahay allahumma ighfir li dhanbi ilaahu dambigayga ii dhaaf ilaahu dambi baan galay dambigayga ii dhaaf ilaahay baa wuxuu leeyahay adoonkaygu dambi buu galay waa khaldamay facalima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi wuxuu ogaaday inuu leeyahay rabbi dambigana dadka u qabta xaqana u dhaafa sidaasuna ii weydiisanaya haddana adoonku waa ku noqonaya wuxuu leeyahay ilaahu dambigayga dhaaf intuu marka la khaldamo mar saddexaad mar afraad mar walba ilaahay waa u dhaafaya mar walbana ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu og yahay inuu rabbiga dambiga dhaafo dambigana dadka u qabto ugu dambeyn ilaahay wuxuu ugu gabagabeynaya uu leeyahay i'mal ma shi'ta faqad ghafartu lak waxa rabtay samee dambigaaga waa dhaafay halka marka intaad fursad ka heshid oo tusbax qaati allahumma ighfir li dhag allahumma ighfir li dhag allahumma ighfir li dhag adkasiisi waa tiraada maxay ii diidahay inaan mar walba khaldamo waa kan xadiiskii oo tooran soo sheegnay masalada shaygaani waa dhiirigelin lagu dhiirigelinayo khaladkii aad gashay inaadan ku sii madax adeegina ilaahay uga noqotay ee maaha fududayn lagu sahlayo lagu fududaynayo oo lagu baasahayo war macaasida kale ilaahay waxa weeyaan waa ghafuur raxiim iska khaldan ma ah ha u qadanaysaas طيب ilaahay ghafuur raxiim waa yahay raali laakiin kama aha macaasida iyo dunuubta shayga 24aad 4 ilaahay dambiga ku dhaafaa waxa weeye qofka mu'minka ah inuu istighfaarta ilaahay weydiisto wuxuu nabigeenu sheegay sallallahu alayhi wasallam man qaala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi qofka yiraahda waxaan dambi dhaaf weydiisanayaa allah oo uu jirin macbuud xaq lagu caabudaa illa asaga mooyaane allah xayiga ah nool makhluuqiisa maamulkoodana u taagan ilaahaygaasaan u toobad keenaya ilaahay dambigiisu u dhaafaya walow qofkaasi haba noqdo qof jihaad dad muslimiin ay ku jiraan kaga cararo kaga baqday laana jihaadka laga cararo waa dambi weyn dambigaas xataa haduu qofkaas u qabay laakiin adkaartan uu la yimid ay dhab ka tahay ilaahay dambigiisa waa dhaafaya subhanahu wa ta'ala oo dambigu ilaahay uu dhaafaya tayib bisalada 35 ilaahay dambiga uu ku dhaafaa waxa weeye adkaartii aan soo maray qayb ka mid oo ah nabigu inuu sheegay sallallahu alayhi wasallam ma ala wajhi al-ard ahad ciida dusheeda kuma sugna qof oranaya la ilaha illa allah wallahu akbar ilaahay xaq lagu caabudaa ma jiro kaligi mooyaan allah ilaahay baa wax walba takaway wala hawla wala quwwata illa billah xeelad iyo awood ma lihin ilaahay inuu ikaalmeeyo mooyaane qofkii sidaa yiraahda illa kufirat anhu khataayahu walaw kanat mithla zabadi al-bahri dunuubtiisa la tirtiraya ceebihiisa la asturaya walow dunuubtiisu haba noqoto badda xumbadeeda iyo xoorteeda wax la eeg marka sahlanin arlada dusheeda inaad ku badiso tawxiidka la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah hayraysan waxa la mid ah oo qodobka 36 uu noqonaya ilaahay dambiga uu ku dhaafo islaamnimada qofku uu soo islaamo wixii islaamnimada ka horeeyo khalad oo galay ilaahay waa ku dhaafaya xadiidka Abdullah ibn Amr ibn Aas oo markuu soo islaamayay oo nabiga yiri keen gacanta oo nabigu gacanta u soo taago gacanta uu ka laabto war maxaad gacanta u laabatay adaabay u yiri nabi maxamed oo gacanta soo taagay gacantaydu iskama taagmayso shuruud baan ku taaganayaa nabi maxamed oo maxay tahay shuruudaadu waxaan rabaabu yiri hadaan maanta ku beeca kula galayoon ku gacan qaadayo an yughfara li dambigayga in la ii dhaafo wixii hore iga dhaco khalad aan la ii raacan markaas nabigu yiri ama calimta anna al-islaam yahdimu ma kana qablahu miyaadan ogeyn islaamnimadu dhidibada inay u jarto wixii hore dunuubo dhacay
ويسوس الحارس وحال دلي أد كان نقريس وقضوا كصدني اللحاد كان صدني تضاد وحنا نقول هجرة قفكي قال كسو هجرو ده أما دولكها كو إسلام أما مسلم توجي تريهان نقضوا ودول إسلام يميل دينتي سو وبد بعد يهجرو دينتي سلا عررة أيضا حديث كاس النبي كوشة وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها إن أيتها أسباب الذنوب تدتك لو غرافه وإلهي خلداتك وكعفيه أيضا حديث كاس النبي كتل ما صلى الله عليه وآله وسلم قضوا كتطبيع سداد يصدنات وحنا قنية إناد إلهي بريد وبريد إلهي بديسيد وحنا نبي نتل ما صلى الله عليه وسلم هبين كستو هبين هذا كمده هبين والبا إلهي خلقي سوء دوانية قالين كدام بولي بهبينك مركاسو وحليها يا إبرية وأن بريدي سأقبله يا وحي ويدي سنية وأن عدسي ساسية يا دم بدافي قعد سنية وأن دم بقى كرافة عجيب وحا لقاها الله يا أديك معها إلهي باقولها الله يا أديك وكون نادينية يويديسو سانكو قراف إبري سانكو سيو إلهي كليا لقاها له قف بني آدم ما أنت وحي بيراهن سومالي السوق أنت اللي استجيا وحي يقولها هي لما يراهدو وحي أنت اسكبقها هي إن وح لقاته وحيسه وحقا لقات صدو نن أورنا هي برك متشر لكن الله وحي كليها قفك ولي وحن شاء الله أنا وخلد هدو أنا قالي إنه مال درن إيو بص مال درن كدعه مال درن إلا كاتور بين الرهنا لكن إلهي أنت هتكخلد توحي كليها يسوع نقو وانكار دافيا حدنا وضع خلدمي يسوع نقو وانكار دافيا إيه إمو سون نقو كسر نقو دنبيك كتوبت كين طاعة الله إمو مع سيدة كفو استغفاري ويديسو وحي ويديسو غني نمديسة يا وحول بينه هاي سكوسة وبنجي يساد حو ويديستي آدم أنا محل ويقانا وروحيته والله أنا شايف كي برمبرك وعيار ساب كليه بسارد بوايها المقالة كتبت كليه دور شاهد الله صباح أحب الله ما هيو مقالة وحوية ولا كلا شهادنا هي فقر يسوق تصينا يا غني مديسنا وكاقلنا يا آدم لكن إلهي غني نمديسو كوسة وبنجي يا رحمديس ويديسو أنا كوسين يا كريجي بالله لا مالك لا ما يلو مركا سكة سوقف كهذا يدعى وبدن يهي إلهي أرحم الراحمين الخيستاي وطوبت كين دم دافنا ويديسو قضب كصدن يا سجال هذه وحوي توبت صح لا قفكم مركو توبت كيانو أو توبت ديسو صح أي تاي وحيالها إلهي الدنوب تقول رافي كميت نم واحد شر ربنا إسرائيل والنبي أن أكور رمي سجال يسجاش النم بدله وحقدر كدله ولي بقى ما هنن استدفاعية ما سجال يسجاش كم حقدر كدله وده إسكام مسكين وأنا قام في عنا لهم بنتي يدير حسيالي سجاش النم بدله توبت مليه سوي حقيقة توبت كلا ده هيبش تذكر ونك بعد كذا تاي أسجنا بقول بكذا محمد مرة يا مرك بقول نم بقى عنتي سكدله هذا وحي يرهلا يتصي قف أقوان له وجبنا يا قف كاس يجي إسلامنا وقف الحالنا هيا وأنا جبنا يا وحي دريم يا خلق وقلي ورقونيها قف وضدك واقع رن هلا إيش نم بالله شيخ نيجي بوتجي وحي بقول نم بنسود له توبت ملاه ايش واحد كم مقطع دور له تون له كوز كسر بلا بلا هالكاب بقول كلا بعض لكن إن أقويها وهايو فتنكم مركا يدعان إلى العلومات ومدى كبد بادية سيدا أوجد قصة قارون مركا لقوا رمي في سورة القصص يعني حوله وهيستي يا الضوام مضى يا برواقدي صدقك عامدها مركا أركان الله قارون وحل سيو كلي أنا سي أركان نصيب يا أيام بدنا وقتها ساعدي رها صومالي وقتها أي ساعدي الله كانوا كليته إنه لذو حظ عظيم الله أيام بدنا علومات بالله هذا شيء مرك ويلكم ثواب الله خير لمن آمن إن كان غبوي إلهي أجرك يا خيراتك وبحيادتك أهل الإيمان كأو خير بدن وحنا معه أيوة أوتشي هذا نك قارون هاي هنتي سيبدل كل لجوي هدوا بيدتك عامدها وحي ليهين رياره إلهي هدو سنة بدوادين هساسا نقول لهم بليه مركا علومات مركا دباتة تمادو مشكلة تمادو تدك أيجا داويو بدباديو سمات بحية مركا ninkaas wuxuu ku yiri yaa kala teedayo idin kala dhex galay adiga toobada waa ku furanta toobadu laakiin waa kula talinaya dhulkaani dhul xun oo aad ku kharibantay oo saaxiibo xun ku yeelatay oo aad dhiigi ku banaysatay weeyaan isaga tag magaalo heble aad halkaas dad fiican u joogan ilaahay caabuday orad halkaas waa dhaqaajiyay marka intuu jidka ku sii jiray waa toobadkeen halkaas u socda dhulku joogay isaga tagi inta wuxuu raadinayaa badbaado ayaa geeridu ku timi markay naftu ka baxayso marka xabadka dhulka ku dhufta waxa isugu yimid saddex qolo malaa'ikatu rahma oo malaa'ikta qofka wanaagsan markuu dhinta naftiisa qaado amalku moodku markuu soo saaro way kala wareegaan iyo malaa'ikatu alcadaab oo qofka xun markuu dhinta naftiisa qaada malaa'ikatu rahmana qofka wanaagsan bay qaadaysaa naftiisa kan xunna malaa'ikatu alcadaab ba qaadaysa waxa kale oo meesha ka soo qayb galay shaydaan
ملائكة الرحمة وي دعوودنا وحي هلنا وحي يراهدين نين كانوا أسقوا طائب وإلهي أصو نقضي بنفسه كبحضة مركا حق رحمة إله ما نقاضينا ملائكة العذابنا وحي يراهدين انت سوقف بسودلو وديع شيطان وهذا لو وحي انتو نولا ولي هل مالنا معاصم بالكفر هذيك ولي انت إير وحسمين مدي بقولك قف أسقى يردل حقيقي جيني سام بيجنا ووطان إلهي بقى ملك أصو دري صدح ذا قرار إحدى حادية ووحي للكي وكيميد إيه كان أسعدي السفيرية حبد كودو يهاي بدت كذيه ولا ميزامي للكي وأنا أكسنايا أسعدي بدت كذا نقول دم بيجي سال ضعف وحل قطع في دم بيجي ساس كسعد كليا معها وتوبت صح ونكاس توبت كيان نجوبنية وقلبك كجوبنية وحويان معاصي يبكى إلى هذا الدرامي أيوها طيب هل كا يعاود ينوتشوا يا شاء الله تعالى أنت الإيمان هبين دم بعين ولما يسرنا والله أعلم صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.